waxaad u martadaada kudulnoo la duuya برافونا كشك سراي هذا ما أنت إن أذيك مقولك أنا إيه وكنت معنا برافوق الناس تعطون نقولني أكبر إذا قال خل فيه ما هي تناس خش ليش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا لاقي ما أركب مش كرسي أركب وأنا هنقع عود بليسن هذا شيء دار ولا إن لقى عود بيستربتدي شغالة مش شغالين كرو مانتا guriga waxa iga furan yahay buuq badan xali wato ogeyd wixii dhacay shaqada labsaan laguma wadi karo marka qofta waa in la waco oo loo sheego caawa in madaxa loo soo bedelayo jawiga laga soo bedelayo in guriga ku wareertay waa qof kaligeed guriga joogo wax walbana way ku fikiraysaa marka caawa inay iraahdo casho waxba ha karinin banaanka casho ka soo siiya niyada u soo dejiya qaxwo soo cabtaa marka taas sameeyo hadda aan u sii sheegna imaanaya waay because madaxay xanuunaya ma shaqeyn karo way marka shaqeey maaga waxa igu soo dhaceysaba arinta xalay dhacday buuq iyo naagti iyo maseerki balaayad gabadha ugu fuleed baa igu soo dhaceyso marka bal caaw xoogaa ina jawi soo dejiya maskaxda u soo dejiya lana soo hadlaa waxaad u martadaada kudulnoo la duuyada adiga iga deeqoon kugu dogsadaa waxaad u martadaada kudulnoo la duuyada هاني ستا في عن ستة أقوى في عنا ما شاء الله حمد الحمد لله أدبا وناكسناي hadda inaa soo baxaa rabaa xaafadda soo aadi raba ma fahantay ومحا شقد ما نخسر ميسن maya shaqada ma dhameynin waxaa rabaa inaa caawa wax casho aadaan karanin ma fahantay وايو saxsaa jeclaysta waxba cashaha karanin waa ku imaanaya adigana istiyaari waxaa rabaa caawa inaan banaan ku wado oo casho soo siiyo وايو عشان أودي دناكتي كلمة دلس عشيسي ma ifahmin miyaa waxaa ku dhahay waxaa rabaa inaan caawa ku wado oo banaanka casho kaa soo siiyo oo madaxa kuusoo dejiyo soo sheekeysano soo wada hadalna u baahanayo haduu ilaaha idmo أيوة يا هي marka waxba cashaha karanin ani hadda waa soo baxaya adigana isdiyaari si hore uga baxno أيوة يا هاي بيبي aad baan ku salaamaya هي حبيبي sheekadan sheekay igu weyn waay marka is shukaansanayni ay igu dambeysay waa cashi i geeyo caaw talow sheekadiisa maxay tahay kolley wuxuu iga sasabanaya wax yar ma ahan muddo 2 bilood baa hadda isqabnaa weligiisna hal habeen cashi ima geynin kolley wuxuu jirabo kaaro kuwa diradiraaliyo tabshi dariskane badan kala daadsanaantiyo dumisteena jecel baan ani soo dhawow halkan waxaa kuu keenay inaad buuqi farada badnaa ee guriga iskaga yareysid hadda waxaa noo dalba cashada mar dhow noo imaanaysaa waxaan ogahay guriga inaad keligaa ku tahay oo mar walba madax xanuun iyo buuq isku furaysid inkastoo uu shaydaan kuu sheegaya haddaa baxayna naag aaday haddana aada ii keentay gurigii anoo joogay inaan guriga naag keenay haddaan naa shukaasanayo afadaali dheh banaanka ku shukaasataa laakiin gurigaagii oo adiga aad joogto adiga kuu qabay baa waxaa tirahda naag baa keento oo kula joogto heer waxaa gaartaa tira kursiga aad ku fadhi naag baa kula fadhido marka waxaa jeclaan lahaa shaydaanka iska naartid hadda ka bacdina inaan sidii markii aan ku shukaasan jiray ama aan wada sheekeysan jirnay aan waqti kuu siin jiray aan waqti kuu siiyo shaqadeeda inta badan aan ku mashquulsan inaan soo gaabiyo oo waqti adiga kaa siiyana waa rajeynaya hadduu ilaaha idmo habina iska dhigtaa jeclaan lahaa maxwa qalbi waqti walbana waan jeclahay inaa maxaa la dhahaa habi ahaado run ahaantii aniga wax uun baan arkaa soo iskama maseeraayo sax waxaan arkuun baan ku sheegayaa wallaahi uma malaynayo farxaddii marka shukaansanaysa ay siinaysin aada isiinaysid waa garta muddo hadda bil 2 bilood ah kusii dhawaada isqabnaa
marka ishukaansanayna habeen walba casho ay geen jirtay oo ay soo wici jirtay 24 hours ay la hadli jirtay hadda shaqada saa u aadid one time ay soo wacsaysay tahay caafimaadkaaga xaaladdeeda iga wareysanaysaa taleefankaaga u jiraysaa habeenkii baa imaanaysaa casho ima geysid ima wadid ilama sheekeysatid ilama kaftantid maxaa sababay inaa waqtiga shukaansiga ila kaftami jirtay guriga igu imaan jirtay ila qosli jirtay maantan ani adoo xaas wada inaad ila kaftamin ila qoslin imaadid qaweysatid iska saxatid maanta hadda wax walba isku afgaranay laakiin hal mid ii samee hadda mar dambe aragto iyada agteeda fadhido sawir ii qaasa u arko qofka adiga ku eg oo mar walba macnaha kaa masiirsina madaxa kaa galay saa u arko sawir ii qaad waa kaaga qaadaya xabiibi waa ballan laakiin adoo qayle iyo buuqi inta sawir iga qaad waatana qoftii dheh wadi og tahay yaray dhageyso aniga ma ihi qof oo farxadda ka soo horjeedo waxaan ahay maseerka ruuxaanta waxaan dhan waxaan u sameynayaa farxadda qoyskaaga inay soo laabato maadaama ay maanta soo laabatana waxaan ku leeyahay hor u soco qalbi qofta ku sheegayaan arkay ya waxay nagu tiri waxaan ahay ruuxaan dib dambana kuma dhibi doono xaggee joogtaa waatan agtanada fadhido acuudu billah sug sawira kaga qaadaya asxaabta caawa waxaa soo gabagabeynay qaybtii labaad ee filimka maseerka ruuxaanta marka ugu horeysa aan la sheekaysanayna hablaheena waxaan tusnaa jacayl fara badan waxaan geynaa banaanada si aan usoo siinaa cashooyin si ay u helaan farxad badan waxaan u muujinaa kalsooni aada u badan markaan wadeena cashada soo siinaynana waxaan ka raadinaa kalsooni aan kusoo jiidano laakiin markii uu dhaco guurka oo guriga laisku wada yimaado waxaad u malaysaa raggeena inta badan kaas ahaan ragga Soomaaliyeed inay iloobaan farxaddii hore ay gabadha siin jireen waxay ku mashquulayaan shaqooyinkooda howlahooda teemka inta ugu badan teemka waxay siinayaan banaanka shaqadooda laakiin waxay iloobeen gabadhii ay farxaddii siin jireen ay guriga ay keensadeen inaysan jirinba laakiin ragga waxaa kula dardaarmayaa ka mid ka ahay inaysan gabadha ku dayicin guriga oo ay siiyaan farxaddii ay siin jireen markii ugu horreysay ay la sheekaysan jireen aniga ahaan gabadheeda wixii maanta ka dambeeyay waxaan u diyaar ahay teemka ugu badan in ayada aan siiyo oo aanan ku dayicin guriga maxaa yeelay guriga keligeedii joogtaa way xanuunsan kartaa way isku buuqi kartaa wax walbaa dhici karo laakiin marka aad la joogtid wax walba oo ku dhaca waa dareemi kartaa marka waxaan iskula dardaarmaynaa oo ani xataa dardaaranka kula jiraa inaan hablaheena ama gabdhaheena guriga noo joogo xaasaskeena aan caawino oo waqti fiicanna aan siino aadna oo mahadsantiin xabsi aadna wax ku darsan lahayd gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kala dardaarmayaa nafteedii naftiina oo dardaarmaya waxay tahay caqabad walba oo xagga kaaga imaado ninkaaga inaad u sheegan kartid sida hadda aniga shaam naga dhacdo kale isfahan la'aanta inaan guriga aan ku mashquulo isheeg maxaa la dhahaa caqabad walba sidii uu shalay igu sameyn jiray kale markuu ishukaansanaa farxad uu isiinaayay farxad maxaa la dhahaa kalsoonidii outinku igeenaa cuntada isoo siinaayay markuu i guursaday oo aan ka heli waayay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay ragooda la fadhiistaan ay u sheegaan caqabad walba oo haysato ay dhahaan sidaan baa jirto sidaan saan noo sameeya sidii shalay markuu ku shukaansanaayo uu farxad ku siinaa inuu adigoo xaaska inuu maanta ku siiyo sida aniga shaam nagu tusaale qaata kuwa diradiraaliyo dabshidariskane badan kala daadsanaantiyo dumisteena jecel baan kuwa diradiraaliyo dabshidariskane badan kala daadsanaantiyo dumisteena jecel baan darangaaruleyon daaficidahayo adna ila daryeel darangaaruleyon daaficidahayo adna ila daryeel
daynayaa dudmo kaga daba hadhaa